dhowaan dowladda Jabuuti ayaa shaacisay inay Itoobiya siinayso deked ay si buuxda u maamushaan oo xigta dhanka xadka Jabuuti ay la wadaagto Eritrea si loo soo afjaro khilaafka gobolka xasiloon darrada geliyay ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya ee ku saabsan arrinta badda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa waraysi uu bixiyay 2 usbuuc ka hor wuxuu ku sheegay ballanqaadka Jabuuti ee ay ku doonaysay inay deked gaar ah ku siiso Itoobiya, wuxuuna wasiirku raaciyay inay sababtu tahay sidii loo kala badbaadin lahaa labada waddan ee Soomaaliya iyo Itoobiya. balse yabohaasi qaaliga ee ay Jabuuti dekeda ku siisay Itoobiya ilaa iyo hadda kama soo jawaabin dowladda Itoobiya. sidoo kale Itoobiya hore ayay u diiday inay qaadato saami 19% ah oo laga siiyay dekeda magaalada Berbera sanadkii 2018 markaas oo maamulka dekedaas lagu wareejiyay shirkadda Imaaraadka laga leeyahay ee DP World. Cali Cukaad oo arrimaha Geeska Afrika ka faalooda ayaa ku sheegay jawaab la'aanta Itoobiya ee yabohii Jabuuti ay muujinayso damac halis ah oo ay Itoobiya ka qabto badaha Soomaaliya. inay Itoobiya diiday inay qaadato saamiga laga siiyay dekeda magaalada Berbera haddana ay ka aamuso dalabka dekedeed ee uga yimid dowladda Jabuuti waxay muujinaysaa inaysan Itoobiya raadinayn marin ganacsi. Cali Cukaad oo mar kale arrinkan ka hadlaya waxa uu yidhi sida iska cad Itoobiya 2 hadaf ayay leedahay, mid waa deked ay toos u yeelato iyo midda labaad oo ah saldhig ciidan, waana midda keentay in aanay ka soo jawaabin fariinta Jabuuti. sidoo kalena aanay qaadanin saamigii ganacsi ee laga siiyay dekeda Berbera sanadkii 2018. dekeda ay Jabuuti ugu yaboohday Itoobiya waa fahamsan tahay Itoobiya inaysan toos u qaadan karin, balse ay tahay mid ganacsi, sidoo kalena aanay ka dhigan karin saldhig ciidan. Cali Cukaad oo markale arrinkan ka hadlaya waxa uu yidhi Soomaalida guud ahaan waa inay arrintani baraarug ku ridaa. ciddii maanta Itoobiya u fasaxdaa biyaha Soomaaliya waa hubaal in aanay berri ka kicin karin. dekeda ay Jabuuti shaacisay inay siisay Itoobiya wuxuu sii fashiliyay qorshaha Itoobiya. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed waxa uu fagaarayaal badan ka sheegay in 120 milyan ee Itoobiyaanka ah inay xaq u leeyihiin inay helaan bad ay ku ganacsadaan. laakiin hadda si fudud ayay Jabuuti u tustay caalamka in hadalka Abiy Ahmed aanu sax ahayn oo doonista Itoobiya aanay ganacsi ku ekayn. xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa weli taagan, waxaana la filayaa in bartamaha bishan inay mar kale labada waddan isku arkaan magaalada Ankara ee dalka Turkiga, xilli aanay wax weyn oo macno leh ka soo bixin wajiyadii hore ee wadahadallada.